xanuunka koonfurka saddexdii ugu dambeeyay si xawli u kordhay si xawli ah ayuu kordhay waxa la baaray bishii March oo bilaabmay hore ilaa maanta 3,380 qof baa la baaray 2,008 qof baa laga helay cudurka waxa ka bogsaday dadka ka bogsaday wuxuu noqonayaa tiradooda boqolkiiba 6 dadka u dhintay waa 8 marka waxaad arkaysaa marka uu cudurku badan yahay dadka ka kacaya waa 1,800 iyo dheeraad 8 way ku dhintay marka waxaad arkaysaa dhimashadiisu ilaahay inuu inoo sahlay haddii nahay Afrikaanka ama dalka taagdara dalkeenada oo dadka laga helayo iyo dadka dhimashada inay yartahay taa micnaheedu ma aha lees ilaalin maayo taa micnaheedu ma aha lees ilaalin maayo waayo waxa soo kordhay xanuunka uu isdhal rogaya kii uu ku bilaabay ma aha kolba mid cusub oo si gaar ah u saameeyay bini'aadmiga soo kordhayay marka kolba xanuun cusub ay nagu soo kordhayay xanuunadaas qaar baa la yaabaa in halis baa nagu keenaan sidaa darteed ma oran karo nolosha waanu xidhaynaa waa ma noolaan karo inuu hadda karo ma noolaan karo laakiin waxaynu ku dadaalaynaa in aynu qaadano waanooyinka ay soo tabarayaan dhakhaatiirta iyo culimada caafimaadka afxirku ka mid yahay fardhaqu ka mid yahay kala durgu ka mid yahay shirarka wixii laga maarmi kara ee daruuri ahay oo dhan in laga maarmo oo la yareeyo isdhexgalka wasaaradda caafimaadka qorshayaal bay arrintaa ka soo wadaa tallaalkii shalay yimid waa mid caalamka oo dhan yimid tallaalku waxaan u sheegayaa dadka waa ikhtiyaariya qofna la odhan maayo qasab isku tallaal laakiin waxaa la ogyahay in loo baahan yahay haddii la yidhaha sabti waa la bilaabaya kow baan ka ahanayaa anaa bilaabaya way kama maarmo qofkii aanu may doonayo istilaali waaye waxaan leenahay bulshada kale afeen waa lagu rikoor garayn haddaan cudurka qaadun baa dee lagaa saari bulshada waayo waxa laga hadlayaa waa 0.6 marka 2 dhibic lagu dhufto 6 ayaa saameyn lagu arkay waliba Yurub badan marka dadkeena waan kana waa u baahanahay iibna waa ku doonaynaa cidii kale aanu dalbanin oo keentana waa ka qaadanaynaa ummadana waa ka talaalanaa kolba intaagtana waa ku dadaalaynaa qofkii aanu isma talaalayo waa xorwa ma aha qasab